gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ugu baaqay madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed inay u midoobaan sidii loo difaaci lahaa xuduudda dhanka bariga ah ee dalka Kenya iyo Soomaaliya waxa uu ugu baaqay shacabku in ay sida degmada balad xaawo shacabka ku dhaqan ay u hor istaageen ciidanka Kenya inay dhankooda u midoobaan oo aysan ku kala qaybsimin arinta la xiriirta difaacidda xuduudda hawada cirka iyo dhulka ee Soomaaliya waxaad ogtihiin in maxkamadda Hague hadda ay taalo dacwadii Soomaaliya iyo Kenya ay isku haysteen badda arinta hadda uu senatorku inoo sharaxay macnuhu waxa weeye Kenya xuduudda hadda sida u taala hadii la yiraahdo dadii la cabiro si perpendicular u dhacdo waxay ku helaysaa ma jirto way diidan tahay waxay leedahay heshiiskii weli rabtaa oo xuduudan bariga ay sidaa u soo qaloocinayso sidoo inoo sheegay meel badda si perpendicular ay ugu dhacdo wax ku helaysaa iyo raadinaysa taasina ma aha mid aynu aqbali karno oo aynu qaadan karno waxay soo baahan tahay dawladda ana dawlad goboleed ha noqoto ama dawladda dhaxaan noqoto iyo shicibka Soomaaliyeed sida degmada shicibka balad xaawo ay isu taageen in la isu taago oo arinta la ogolaan in la leexiyo oo laga raadinayo meel ay kolkaasi Kenya xuduudeedu si toos ah badda la cabirayo ay uga dhacdo hadalkan ayuu Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa uu ka jeediyay xiritaankii shalay ee kalfadhiga golaha aqalka sare ee baarlamaanka oo loo soo xiray kalfadhigoodii labaad Maxamed Ciise Maxamuud Somali Cable TV Muqdisho